maaha inaanan diyaarad weligan arag inaanan garoon aragna ma aha laakiin waa inayna haysay baahida garoon la'aanta diyaaradeed oo maanta aan xaq weyn oo inaga maqnaa si isku tashi ah oo isxilqaan ah maanta ilaahay noogu suurtageliyey markaa kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo soona dhoweeyo wafdiga uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya wasiir Duhraan Axmed Faarax iyo wafdiga hogaaminayo ka mid yihiin agaasimaha guud ee wasaaradda iyo maareeyaha duulista hawada iyo Generaal Saacid dhammaantiin waxaan leenahay soo dhowaada farxadeyda lama qiyaasi karo waxaan leeyahay bulshaweynta reer Galdogob way dadaaleen intaana imaadeen intaasoo sano 30 sano iyo ka badan dawlad la'aan ah dadka reer Galdogob xaqooda ma helaan ayagoo ka tirsan dawlad goboleedka Puntland wala dawlad federaalka Soomaaliya dadkan ayaga isku tashaday ayaga isbitaal dhistay maanta intaana imaadeen airportkana waa ayaga dhistay wax badan uu u baahan yahay inay noo dhameystiraan ayaan ka codsanaynaa dawladda federaalka lambar 1 lambar 2 qurba joogta iyo deegaanka dadka u dhashay waxaan leeyahay farxadda maanta inta dadkaanayto idinka idin sugayaan waa inaa isku tashatiin waa inaa airportka dhameystiratiin waa inaa isgarab qabatiin oo isgarab istaagtiin waxaan ku faraxsanahay magaalada Galdogob inay ka soo degato diyaaradii ugu horeysay ee airportka Galdogob International Airport oo uu la socdo wafdi hogaaminayo wasiirka duulista hawada airport waa laga dhisi jiray waddanka laakiin waxay gooni uga tahay magaalada aan muddo ka badan 30 sano bay ku taamayso marka waxyaabihii ugu badnaa intaan hawsha wadnayna qabsaday waxa ka mid ahaa waxa la oran jiray airport lama dhisi karo dhismihii markuu bilowday waxa la goorma diyaaradda ka soo degaysa hadda caawa u dambeysay daqiiqaday ka soo degaysa noo sheeg baa laa marka waa wax ilaahay lagu mahadiyo waxaan halkan codsigayaga wasaaradda wasiirka hogaaminayo iyo dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda Puntland meeshaan baahiyaheedii wali waa qabyo cid walba door ku yeelan karta waxaan rabnaa inay indhaha furto ka qayb qaadato waa maasan yahay wasiirku iyo dadkii reer Galdogob ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaan waqtiga iyo dhaqaalaha ku bixiyay waxaan rabnaa inaan uga mahadcelino waxaan leenahay laba jibaara haddii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ay natiigelinayaan dadkayaga farihiisa way arkayaan garashadiisana way u jeedaan meeshaan u soconnana way u jeedaan haddayna rabaan oo ay rabaan reer Galdogob iyo ummadda magaca meesha aan ku taagannahay Soomaali baan ku taagannahay Soomaalida meesha aan ku taagannahay maanta waxaan codsi uga soo jeedinaynaa hadday noo soo saari waayaan Duhraan Axmed Faarax dib baan ugu laabanaynaa wixii naga dhaca oo xaggoodaana ayagaa mas'uul ka noqon doona muddo yar ayaa ka soo wareegtay maalintii aan hoodku ku kulmaynay macnaha wasiir Duhraan uu ballan qaadayay in Galdogob uusan badna lahayn hawadana uusan ka xirnaa doonin maanta waxaa farxad ii ah in ballantii oo rumowday aan indhahaygu ku markhaatooga noqda ayaa farxad weyn ii ah weli ma dhicin historiga aviationka Soomaaliya in garoon dhismo ka socda in aan dayuurad u fasaxno weli ma dhicin maantay markaan Muqdisho ka soo baxaynay counter ayaa lagu furay markii ugu horeysay magaca Galdogob marka counteradii furnaa Galdogob asaga ka mid ah airportkan inuu hirgalo oo shaqeeyo ama airport noqdo ama lagu fikiro dad badan baa yaa ka shaqeeyo ka fikiray markii ugu horeysa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soo waxaan rabaa inaan mahad celiyo saaxiibka Yuusuf Diiriye Haybe aniga meeshan jooga in airport ay Galdogob yeelan karto Galdogob laga dhisi karo ugu horeeyay ugu dhaliyay oo maxaa la yiraahdaa in la sameyn karo maskaxda soo gali asagoo ahaa khayr Allah siiyo anigu inay airport ku xarislaa wax weyn oo dawladda dhisayaan weeye ma ahan inuu shacab dhisi karo oo dad dhisan kara ilama aysan ahayn isagii team la yiraahdo Eurosom runtii xoog waxay ka qaateen gacan xoog leh inay hawshan u hirgalo airportkan aad baan uga mahad celinayaa kulligood waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo teamka halkan ka shaqeynayay oo waqti badan galiyay oo maxaa la yiraahdaa waqti kasta oo hogaaminayay sida walaalkay Cabdinuur Saciid oo kamid yahay Xaaji Muuse marka kulligiin aad baan kaga wada mahad celinaynaa sidii loo sheegay waxaan rabnaa airportkan hadii la yiraahdo hadda waa intii basic ahayd baa socota oo asaasiga ahayd airport qurux badan oo rabo sidii maarayuu sheegay hadii la rabo Turkish Airlines iyo diyaaradaha ka waaweyn iyo qadari kuwa xamar ku dagaa inay ku dagaan hadda waa la samaysan karaa oo hadii la yiraahdo hadii la tashado oo la isku raaco ilaahayna waa raali ka noqdo waa gaari doonaa hadii la yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsantiin